walaalo ah oo wax isla difaacanayo ku ceebin maayo anigu in ay u difaaco Axmed Madoobe xidig laakiin waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo shacabka Soomaaliyeed aan u sharaxo weerarka oo TV-gan oo waraysiga Xasan Cadde uu bixinay as ugu weeraray xidig waxyaabaha uu soo qaatay waxay ahayd inaan diin iyo akhlaaq midna aanan lahayn asagoo xiganayo kaaseed ay jirjireen nimanka nabadiidka ah oo qof kasta oo aniga asagaba aan isqabsano oo siinbiri soo qaato oo muxuu ahaay la jarjaray 80 waxaa la jarjaray 2013 I mean 2013 ayuu ahaa kaaseedka markuu soo baxay oo ay nabadiidka jarjareen hadda nabadiidka inuu jarjarana ani hadda lama yaabin wax ka weyn ay jarjareen dad badan oo aniga magaciisa sumcad badan ay hadaladooda jarjareen oo ay clip ka sameeyeen oo ay intay jarjareen u sugeeyeen oo wax muxuu ahaay sumcadda qofkaas ku fiicneen ay ka soo saareen waa dagaalka ka socda dalkeena ayuu ka mid yahay laakiin waxaa nasiib darro xidig inuu soo xigto kaaseed ay shabaab jarjareen waaga oo kaaseedka ay jarjarayeen aniga asaga isku gudiyaan ku jirnay guddiga baarlamaankii oo muxuu ahay sagaalaad guddigiisa ayaan ku wada jarjarnay aan iskala wada tirsaneen waxaas og yahay inuu hadda maanta aniga sumcad dil as iyaga dhigo ama qof aan akhlaaq iyo diin lahayn as iyaga dhiga anigu akhlaaqda iyo diinta dadka ma soo amaahsadee waa liigu dhalay dad akhlaaq fiican laha isoo korsaday oo abayaalkay ah ahludiin ah soomaalida i taqaanana ayagana waa i yaqaaniin oo dadka i yaqaan muhiim ma aha inaad xidig i yaqaano laakiin dadka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo i yaqaanana waxaan ahay waa yaqaaniin taa oo aan rabo inaan muxuu ahay aan ka bixiyo kaaseedkaas uu soo xigtiyo oo hadalkaas la jarjaray wariyihii waraysanayo xataa ay sheegeen hadal isku geeyay ay u ogyihiin oo yiri laakiin waa ka dhaga adkaystay personal attack ayay ahayd oo ugu sameynay su'aala la weydiiyay waxay ahayd xildhibaano iyo dad badan oo waxgal oo siyaasiyiin ayaa Axmed Madoobe ku dhagan toos isla markiiba hadda meesha xanuunaysaan ogahay anoo ii soo weeraray shacabka Soomaaliyeed ee videos fiirsadana waa arkayeen tusaalena way ka bixin karaan waa sax waaye Axmed iyo aniga dagaal waa naga dhaxeeya laakiin waxa isweydiin mudan xidig iyo Axmed bilyaal ka hor maxay isku dilayeen waxaan hayaa video oo iga codsanaya xidig aniga oo aan baraha bulshadana soo dhigi doono oo iga codsanaya aniga in Axmed la dilo oo aan awalba Axmed waa haysanay sideen u shaqeynay si ka daran aan Axmed oo la dagaalamo asagoo iga codsanaya oo dhahayo wareerkaada iyo dadkaaga igu soo xir dhahayo video aan hayaa oo muxuu ahaa cod aan duubay aan hayaa maxay isku haysteen waxay isku haysteen xidig walaalkiis wuxuu ku dilay soor aniga laakiin qadiyad ayaa iga maqneed laakiin asaga soor ku dilay nin walaalkiis soor ku dilayo inuu maanta aniga akhlaaqdeedii iyo diinteedii iyo anshaxeedii wax u dhimo runtii aad baa looga xun yahay shacabka Soomaaliyeed arintaas oo dhigtooda gaadhina waa ka raali gareyna xidig waa saddex kaare shalay Tigray u shaqeynay oo jaajeys u ahaa maanta waxaas u shaqeynayaa muxuu ahaa Imaaraad iyo muxuu ahaa iyo Kenyatta hadba ninkii ku shubto
fadlan igu shubad la sheego waa kulundiga oo professor dalxa uu sheegay waa meel walba kulundi asoo taagan yahay aniga laakiin akhlaaqdeedii iyo samceyga iyo basarkeyga iyo diinteydaba iyo ma ogolo dalkeyga inaan jaajuuso dalkeyga inaan cadow u gacan geliyo iyo ma ogolo waayo waxaan ka soo jeedaa dad u soo dagaalamay dalkan Sheekh Xasan Barsane asagoo 4 gobol xureynaya ayuu xabsiga muxuu ahay dagaal lagu qabtay oo u dhintay bal ogeey asagana awoohiis email ku dhintay oo baahay asugu dhintay asagoo ciidanka ay laga kala watay oo la jaajoosay Sayid Cabdulla Xasan email ku dhintay marka famiilaha sidaas aan soo kala jeednaa marka qof dhaqankiisa iyo caadadiisa waa un adiga ma aragtay muxuu ahay qof walba waa u tagaysaa wixii ahaan jiray uu ahaana xidig wuxuu ahaan jiray nin Tigray u shaqeeyo Tigrayga maanta askari Tigray oo ka fakaday waaye waxaa nasiib darro ahayd in dadka noocan oo kala burburka dalkeena ka dhacay waxyaabaha uu soo waxa kamid ah dadka noocan oo kala oo af Soomaaliya isku hadla siyaasadda loo soo galiyay inay siyaasad nagala shaqeeyaan oo ay nagu doodaan dadka waayo muxuu ahay asoo kalaba ma ahayn Soomaalnimadiisa ayaa shaka ku jirto waxyaabaha hadda 24 saacan u leeyahay war hal qoro yaa Soomaali ah citizenship hal qoro anu leeyahay waa xidigoo kala meesha ugu baxay waayo shilaawo ku dhashay Soomaali asagoo siyaasi noqona unba ugu horeysay asoo siyaasi ah oo xildhibaan la leeyahay ayaa Soomaali ugu horeysay ninka noocaas oo kala dawladda shay u shaqeynay ma aaminsanaba inuu Soomaali asaga leeyahay anigu hadda inta inaan sii dhaafo ma rabo laakiin waxaan leeyahay shalaad walaalka soo ku dilaysay maanta su'aal lagu weydiiyay ayaa jawaabteeda ka dhigtay kii soorta ku siinay adoo difaacay Axmed oo soor ku siiyay adoo difaacay ay akhlaaq iyo diin qof muslim oo walaalka ah oo waliba xildhibaan aad tihiin ad ku weerartay one day anigu xidigu ma rabin inaan xataa ku soo xigto waayo waxa tahay Soomaaliya og anna waxaan ahay Soomaaliya waxaan leeyahay waa la shaqaanay yaan la midkeen xidig nabadii kaaga darin nabada dalkan lagu haystaa qofku hadii wuxuu ahaan aad ku sheegto qofka kale oo dulmo waxa way nabadan la helay marka aan nabada wada dhowrno qofka walaalka respect si magaaladan xamar kaarbiina lagaaga ceyriyay magaaladii kaarbiin lagaaga ceyriyay ayaa maanta nabad ku soo noqo inta lagu yiri ayaa waliba guri dad shacab ay leeyihiin aad xog ku haysataa magaaladii laga ceyriyay ayaa maanta guriyaheeda bilaqad ku haysataa nabadda fiir fadlan waxaan arkay dad badan oo ila soo xiriiray oo ka dacwoonay oo dhahay noo hadal noo dood guriyaas naga haystaa xidig fadlan horta marka ugu horeysa respect si dadka gurigooda aad ku nooshahay ee aad xoog uga haysato adigaba shalay adigoo saacad lagaaga ceyrin karo ayaa lagugu fiirsadoo hooyo dadka guryahooda ugu bax oo dad Soomaaliyeed aniga hadda qabiilka ay yihiin maaqan laakiin waa ila soo xiriireen waxay ugu yiraahdeen noo dood xidiga guri naga haystay bal waxaan ku yiri shuruucda iyo dalka ayaan u tilmaamay waxaan ku yiri jidkaas mara qof anoo kala jawaab aan ka bixiyaa sax ma ah xidigow guriyaha dadka ay leeyihiin u banay dadka akhlaaqdooda iyo diintooda ku weerarin hadii aad nabad rabto waa hadii nabad rabto hadaad nabad rabin hadee cidaan nabad rabin nabad lama qaadan karo hadaad nabad rabto oo aad rabto in muxuu ahay lagu respect gareeyo dadka guryahooda uga bax dadka diintooda iyo akhlaaqdooda been ha ka sheegin ha dulmin waxaad aniga hadda shalay aad samaysay dulnay dadkoo dhan ma arkay komitiyada laga bixinayo fiir dib u eg aad iyo aad aan ugu xumahay axmedooba difaaciisana adaa ilidil iyo shalay anigu 8 sano aan haysto waxaan ahay ninkii baarlamaankii 9aad bishii May
2015 banaanka ka dhigay oo baarlamaanka codaynaa banaanka ka dhigayana xildhibaannimada quality-ga aan kuwada joogno waa ogtahay weligay kaluundi ma noqon meelaha ma tagtago laakiin baarlamaanka iyo shaqadii lii dhiibtayaan ka adkahay waxa aan difaacayo waxaa weeye dadkaygii oo jubbooyinka joogo oo xaquuqdoodii muxuu ahay la duusii waaye waxaan difaacaya qabiil macaayo axmed ayaa duufsiiyey iyo tigreegii as watay tigreega waa ka reynay axmedna waa ka reynaynaa fiiri waxa aan dhahoohayaa waxaa weeye axmedow dadka la sinaw asna wuxuu dhahoohayaa aga seen ula sinaadaa dadka waa ka weynaya ilaan dhowr dowladoodaas jaajuus u yahay adigana kuwaasaad ku biirtay adoo shalay la dhahay ila dil war ila dil markaad dhahaysay 200 oo imaaraadka ay ku siiyeen inaad raadinaysay war wax dalkaaga lacag ha ku bedelan xidigow dadkaaga lacag ha ku bedelan ummadda jubbooyinka jooga nabad iyo wanaag inay ku wada noolaadaan ayaan rabnaa adigana waxaad rabtaa inaad dadka aad la sinaaneen maanta wixii laga bilaabo axmedooba iyo eeyihiisa ayaan kugu tirinayaa markaan axmed ka hadlaayana waa ku soo qaadan doonaa adigay ku jirtaa marka sida aad yeelayso sumcadda aad islehe daahir ka dil adiga iyo shacabka kaaga dhimin waayo aniga waxa aan difaacayo waa aqaanaa waa shacab Soomaaliyeed ee la dulmay ma dhihin waxa tiri su'aalaha ka mid ah ee hadalkaada ka mid ah dad baa loo diidan yahay jubbooyinka inay degaan cid u diidamna xashaalillah dad fiican oo wanaag badan ayaad ka dhalatay degan jubbooyinka waa la yaqaan laakiin waxa aan leenahay waxa weeye war xuquuqda si siman loo qaato equal la ahaado dadka la sinaado adiga intaas ku dhibayso oo beerka balbalinayso adeero qadiyad iyo qabiil difaac kaama kumadoodan iyo qabiilka aad ka dhalato dhama inta ku soo tuurtiyad badar ka doonatay axmedooba dilaysi axmedooba aniga waxaan ku haysto adiga waxaan ku dacweynayay aniga waxaan doodayda itaada waa kala dugnaan maxaad ku dilaysi axmed adiga shilmaan aad ka qaadato iyo baad ayaad ka dilaysi hadda marka xamar ma baad kula soo noqotay daahir ma aniga la baaday daahir ma aniga la baaday guriga dadeed ee aad degan tahay uga bax muwaadiniintaas haddaad ugu bixi wayso yaa weylig adiga iyo wixii ka qabsada adiga mas'uulka taas axmed waxaan leeyahay xidig waxa kale oo rabaa oo aan doonayaa walaalkay in aan muxuu ugu nasteexay xidigow dalkan waa wada leenahay Soomaaliya adiga hadda waa anaga ku ogolo waxaan ku dhahoynaa waadna la leedahay sababtoo ah sharcigii 1960 ayaa xaquuq ku siinay laakiin waa la yaqaan Soomaaliga dhabtaa waa la yaqaan si kastaba ahaatee maanta ugu xaquuqa tahay saaxiibow dalkan amnigiisa iyo istiqaaradiisa iyo sharaftiisa dhow ha noqonin mar Tigray inaad u shaqeyso mar Kenyaati iyo Imaaraat aad u shaqeyso ha noqonin xilka ugu sareeyaad ka qabatay xildhibaanka ugu sareeyay dalka ayaad ka qabatay sharafta dalkan waajiba ka saaran in ilaaliso hadaad ilaalin wayso waa la iska qabana dalkan Soomaali leeyahay ee burburka ka soo baxay qofka laba kaaraha ee jaajuuska waa la qabana waa kana faylkaada meel walba yeelaan waliba darajo fiican dadka ka qaatay saddex alifle oo jaajuus Tigray ahaadeen ma aqaan maanta Kenyaatiga waxay ay ku siiyeen darajada ay ku siiyeen moog imaaraadkana in hadda 200 kun lagaaga qaaday muxuu ahaa awal basooraad raadinaysay axmedow ku raacdana waa oga saaxib waa la siqaa anagu dalkayga ma gato awowyaalkayna ma gadan awoowahay anoo xur ah iga dhintay dalkan anoo xur ah oo nool oo dalkayga xur as yahay ayuu dhintay adiga sababta dalka gobolkeed ku dhalatay loo haysto loo gumeysanayo oo intaasoo 77 ilaa iyo waqtigaas intaasoo rag ay nooga dhamaadeen jilaafada iyo dhibka aad u soo geysanaysiin iska daay
jilaafada hala daayo kulundinimada hala daayo muxuu ahay basaasnimada hala daayo soomaalinimadaana deeqday soomaali aan ahaano haddaad diidiin ee xidigoo aad diido waa lagu kala tagaa waxaan rabaa waxaa wax lagaa weydiiyey gobolka banaadir 13 xubnood loogu daray waad ka meermeertay adeer kuwa kula dhashayba horey ugu meermeereen labadan nimo hadda aad la socoto horey ugu meermeereen laakiin hal shay aan kuu sheegaa xidigoo oo maanta aad iga qoraysaa buug iyo nood qaado iga qor 13 xildhibaan oo 54 aqalka sare lagu daray 67 ay noqonaysaa 67 xildhibaan oo aqalka sare ah ayaa la xulaya haddii xidigow 13 xildhibaan inta laga taga xamar nabad lagu wada joogo alla ilaaha sidaadoo kale aan ba'da iyo ra'da iyo kala saareen oo aan dadka bilaash ku caaya waa la xula cidna uguma baahan xidiga weydis uguma baahno baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa ansixiyay adiga markaad baarlamaanka ansixinayay shaqada aad ku maqnayd ilaa baarlamaanaad ahayd shaqada aad ku maqnayd ma garanay soo raadisay soo raadis xildhibaano aan soo raadinayna ansixiyay xildhibaano aan soo raadinayn ayaa ansixiyay kunuundiyaad ahayd marba meelaad tagtaa waa ku ogahay lacagaad raadisaa adeer annagu waxaan aaminsanahay lacagta hantida in la helaayo lana wayn karo laakiin dalkayna sharaftiisa iyo isla jarkiisa kuma bedelanayno rasaq la cuno ku bedelanayno jaajuus noqon ma basaas dawladda uma noqonayo xaq waxaa igula dalkan oo aan difaacaya 13 kaas xildhibaanne la weydin ma dad cidna marti loogama baarlamaana ansixiyay baarlamaanka aqalka sare waa 67 qalbigaaga waxa ka guuxay holaca ka baxay waa dareemi karaa waxa tahay ninkii keenay guddigii aan ka wada tirsaneen shakhsi waa la og yahay dadkoo dhan waa og yihiin shakhsiga keenay waxa tahay u dhashay iyo ku dhashay marqaati waxaan u qabsanayaa 18 xildhibaan ee guddiga nagula jira ku dhashay iyo u dhashay adayna maanta ku haysataa aday xamar uma dhalan xamar uma dhalan haddaad ku dhalatay xataa maba ku dhalan waa ogahay qofka ku dhashay ee email iyo degan iyo shilaabo iyo email waxa ku leeyahay adaa qori waa sharci qornos dalkan leeyahay oo berrito markii la qoraayo nationality-ga la soo bixinayo maalintaa waxaa isleeyahay dadku xumay jubbooyinka waxaa maamulaya qof u dhashay qof ku dhashay ma qofka ku dhashay wax xuquuq kuma leh haddaad intaas soo baxday aabaha iyo reerkiina oo qabradaare iyo jigjiga degan yihiin ee intaad soo baxday Kismaayo aad timid ee aday aad ku dhalatay ee meesha Kismaayo xaq kuma leh uma aadna dhalan qofka u dhashay waxa waaye qofka reerihiisa ay degan yihiin haddii reerahaada ay Kismaayo degan yihiin iyo jubbooyinka iyo gaday iyo ay degan yihiin ee aad ku dhalatay qabradaare aad ku dhalatay Kismaayo xaq ku yeelan doontaa qabaa'ilka deganna waa la ogaan doonaa dadkiis ilaahay ku makaaneeyay ee kafac deganay waa la ogaan doonaa citizenshipkina waa la qorayaa waa ogaad wasiirka arrimaha gudaha markay ahayd adaa la cararay maahan wadanka saacadan uu lahaan lahaa citizenship waxyaabaha aad muxuu ahay aad xagal daacisay kamid tahay markii wasiirka xigeenka aad ahayd waa la og yahay waana isna qaana ana ninka inta ku yimid ku soo wareeji guddiga ku yiri saaxiibo dadka waa is yaqaan waxa fiican in indhaha la kala qarsado oo la kala xishoodo waxa hubaal ah ummadda Soomaaliyeed aan ka raali garinaya adoo kale inaad soo hor fadhiisato ee aad wax u sheegto ileen ma baqaadanayeen shacabka Soomaaliyeed way ku ogyihiin aad basaas tahay waa ku ogyihiin Axmedow iyo adiga iskuma haysanin xaqaas iga wataa iyo xoolaas iga wataa iskuma haysanin lacag ha isiyaad isku haysateen aad ku dilaysid
aniga waxaan ku doodayo oo Axmed ku haystaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan waa ogyihiin laakiin adiga waxaad ku haysatay Axmed ee waliba aad ii cusnaysiyo ila dil ilaahay ana horta ahaan dagaal ku jiray ayaan ku iri waliba waa soo duubanahay waa soo dhigaya horta ahaan dagaal ku jiray muxuu ahay 8 sano ay ku sii dhowdahay dadkayga la dulmay shacabka Soomaaliyeed ee deegaankaas la dulmay dadaan xaq u lahayn jubbada gacanta u gashay waxaasay ahayd waxa aniga aan baarlamaanka geeyay Axmed aan ku haysto dadkaygana lagu laay adiga marka Axmed waxaad ku haysatay maxay ahaayeen shacabka u sheeg fadhiisay shacabka u sheeg waxaad ku haysateen sooray ahayd soor ana shacabka u sheegay soortin waa lagu sii waatan daahir jeeso aad ku caynayso marka saaxib waxaan hadalkayga ku soo koobayaa hala kala xishoodo gobolka Banaadir ee ku nooshahay hadda 13 xubnood adiga marti lagaaga ma aha baarlamaanaha ansixiyay ama hadiid xaquuqna kuma lihid oo gobolka Banaadir muxuu uma adna dhalan oo xaliga sii dhimaysa shuruud kuma xirin kartid marka 13 kaas 13 dad xildhibaano ah oo Soomaaliyeed ah u coday xaquuq ay leeyihiin gobolka Banaadirna waa adoo kale imid kale hadii la weydiina ma ogolaanayeen waayo nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu dhahay hadii diintooda aad la qaadatid xataa raali kaaga ma noqonayaan war hadii xataa aan ku iraado wax baan ku siinaya waxaad ogtahay waxaad leedahay biriyo majority ku yahay deegaankana oo ka qaadanaya marka inaad ku qancaynin adiga iyo kuwa aad isku siyaasad tihiinba inaad ku qancaynin waa ogahay laakiin waa lagu qancinaa sababtoo ah baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa ansixiyay uma baahna cidna madaxweyne inuu saxiix u baahneen cid kale aan u baahneen hadduu saxiix waayo sharciga la saxiix waayo sidiisa ku dhaqan gala وانا برلمانك كنتن يافرت هدا اي كجوجت 13 lagu dar 67 isku waqtiga la xula way qaybsiin waa la qaybinaya dadkii oo xaq u lahaa ayaa loo qaybinaya marka inaad saacadan aad ka meermeertid ee aad muxuu ahay jahkal ku dadka ku reeriso adeer waagaas waa dhamaaday waagay dadka la qalad jiray waa dadka xamar joogo waa dad beezaaniin waa dad muxuu ahaa aqli badan waa dad waxaad ku hadlaysa fasiraadka bixin karo diidmay ahayd waxaad ku hadashay laakiin ku ka horeeyo oo ku dhashay horidii kaamana sugay in waayahay aad tiraahdo marka aniga waxaan leeyahay qof walba miisaan ha issaaro miisaanka uu saaran yahay isku cabiro haddii intaad maraayad qaadatid ataay aad xiratid aad isku cabirtid muxuu ahay sawir aan jirin aad isku cabirtid xidigow dhibkeeda ay leedahay miisaan issaar maraayad qaado inaad caatid tahay is ogow waxaad la doodaysa oo aflagaadada aad ula soo doonatay waa daahir jeeso anigu intaas ma ku dhaafayo shakhsi diintaada ma weerarayo oo inaad muslim tahay inaad gaal tahay toone ana dambi liiga qorima akhlaaqdaada laakiin waan ogahay inaad jaajuus aad tahay ina hadda saddex kaara tahay in walaalka aad ku dilaysi raashin maantana aniga waxaad ugu weerartay ay tahay muxuu raashin ayaan ku siinahay daahir iga difaac ay tahay anigu xaqan ka hadlaay kama hadlo xoolo iyo kama hadlo iyo isan daran liisi kama hadlo laakiin xaqan difaaca